سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن أو ونكسن داوضيا qodobadaad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dagaalada xooggan ayaa ka dhaxgarxay qowmiyadaha Oromada iyo Axmaarada iyadoo dagaal khasaare ba'an dhaliya uu ka soconayo gobolka Walega ee deegaanka Oromada qowmiyada Axmaarada ayaa weerar xooggan ku qaaday dadka beeraleyda ee deegaanka Oromada ugu yaraan 50 qof oo dadka rayidka Oromada ayaa qudha lagaga jaray gobolka Walega iyadoo halkaasi ka soconayaan dagaalo culus oo u dhaxeeya maleeshiyaadka ka soo kala jeeda deegaanka Axmaarada iyo Oromada sidoo kale Oromada iyo Soomaalida ay dagaalo weyn ka dhaxqarxeen oo xuduudda gobolka Liibaan ee dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo degmada Guraadamo ay ka dhacayaan dagaalo aad u culus oo u dhaxeeya Oromada iyo Soomaalida khasaare aad u ba'an oo ka dhashay dagaalkani oo soconaya 24 saac la soo dhaafay ciidamada deegaanka Oromada ayaa weerar xooggan ku soo qaaday xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo halkaasi ka dhacayaan dagaal u dhaxeeya Oromada iyo Soomaalida dagaalada ka soconaya waqooyiga Itoobiya ayaa marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraya iyadoo ciidamada Tigrayga ay weerar xooggan ka wadaan gudaha gobolka Axmaarada waqooyiga Gondar ay ka dhacayaan dagaalo aad u culus ciidamada TPLF ayaa sheegay in deegaano aad u ballaaran ku qabsadeen dagaalka maanta ka dhacay xuduudda deegaanka Axmaarada iyo Canfarta ayadoo dagaaladii ugu cuslaa dhex marayaan militariga Itoobiya iyo huwantiisa garabka siinaysa iyo xogaga TPLF oo qaadaya weerar xooggan oo ka dhana ciidanka dawladda dagaalkuna marka ka dambaysa uu ku sii fidayo deegaano aad u ballaaran ciidamada cirka ee dalka Itoobiya ayaa maanta duqeeyay weerar 3 magaalo oo ka tirsan gobolka Tigrayga iyadoo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Tigrayga ay la beegsadeen ciidamada cirka ee dalka Itoobiya duqeymo aad u culus ay boqolaal qofna ay ku dhimatay dadkuna aad uga barakacayaan duqeymaha ay fulinayaan ciidamada cirka ee dalka Itoobiya oo si joogto ah uga dhacaya gobolka Tigrayga dagaalka u dhaxeeya xogaga TPLF iyo militariga dalka Itoobiya ayaa si cuslaaday iyadoo dagaalku ku fiday dalweynaha Itoobiya dagaalkuna uu ka dhacay dhul aad u ballaaran oo weeraan 10 jaha ah oo xuduudda deegaanka Tigrayga ku teedsan xogaga TPLFna ay dagaalka gelinayaan kumanaan daayaraha oo dhalinyarada gobolka Tigrayga xogaga xoreynta shacabka Oromiya ayaa weerar culus ku qaaday baa la yiri fariismaha ciidanka militariga dalka Itoobiya ee waqooyiga Shawa ee deegaanka Oromiya ayadoo halkaas ay ka dhaceen khasaare aad u ballaaran dagaalyahanada Ola ayaa wada weerar ka dhana ciidanka dawladda iyo maamulka gobolka Oromiya ayadoo gobolka Oromiya uu marti gelinayo dagaal xooggan oo u dhaxeeya militariga Itoobiya iyo dagaalyahanada xoreynta shacabka Oromiya aadan bare ducaale waa xildhibaanka laga soo doortay magaalada Gaarisa ayaa si laba filaan ah uga soo dhex muuqday golaha wasiirada ee madaxweynaha dalka Kenya uu maanta magacaabay aadan bare ducaale ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya ayadoo wasiirkaasi uu noqonayo wasiirka awoodda koobaad leh ee dalka Kenya aadan bare ducaalena si laba filaan ah uga soo dhex muuqday xukuumadda cusub ee William Samoei Ruto militariga dalka Soomaaliya ayaa wali si wada howlgaladii xooggan ee ka dhanka xogaga argagixisada ee guud ahaan laga saarayay dalka Soomaaliya ayadoo ciidamada Soomaaliya ay jihooyin aad u ballaaran ay ka wadaan weerar xooggan oo gabi ahaanba xogaga argagixisada lagaga saaraya dalka Soomaaliya walina ay soconayaan dagaalo aad u culus ciidamada gobolada dhaxa ka howlgalay ee militariga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in khasaarihii abid ugu cusla gaarsiiyeen argagixisada magaalooyin waaweyn ay ka qaabsadeen howlgalkan ay sii wadi doonaan ilaa ay gabi ahaanba xididaha u siibaan xogaga argagixisada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 27 bisha 9aad 2022 haddayna u gudagalno wararkeeni oo faahfaahsan dagaalo qaraar u dhaxeeya qowmiyadaha Oromada iyo Axmaarada ayaa ka qarxay xuduudda deegaanada Oromada iyo Axmaarada dagaalkan ayaa khasaare ba'an geystay iyadoo wali ay isku dagaalamayaan maleeshiyaadka ka soo kala jeeda deegaanada Axmaarada iyo Oromada gobolka Walega halkaana uu ka dhacay dagaal aad u culus maleeshiyaadka Axmaarada ayaa la sheegay inay isbaaro u dhigteen dad rayid oo safar xamuul gaari ah watay oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada halkaana ay qudha kaga jareen gabi ahaanba dadkii shacabka halkaana ay ka bilowdeen kacdoon looga soo horjeeday qowmiyadda Axmaarada kadibna ay maleeshiyaadka maxalliga
ee ka soo kala jeeda qowmiyadaha Axmaarada iyo Oromada ay halkaas isku farasaareen iyadoo dagaalka u dhaxeeya maleeshiyaadka ka soo kala jeeda deegaanada Axmaarada iyo Oromada uu dhul badan ku sii fidayo dagaalkuna waa u cuslaaday khasaaraha ka dhashay dagaalka u dhaxeeya ciidamada ka soo kala jeeda deegaanadaasi ayaa la sheegay inuu deegaano hor la gaadhay iyadoo barakacyo aad u waaweyn ay ka taagan yihiin waa xuduudda dheer u dhaxaysa deegaanada Oromada iyo Axmaarada sidoo kale qowmiyada Oromada ayaa la sheegay inay weerar xooggan ku hayso dadka rayidka ee ku sugan gobolka Liibaan ama xuduudda deegaanada Oromada iyo Soomaalida ay wadaagaan dagaal xooggan ayaa maanta ka dhacay xuduudda gobolka Liibaan oo la wadaago gobolka Oromada ayadoo ciidamada Soomaalida la sheegay inay si weyn iskaga caabiyeen ciidamada duulaan soo qaaday oo ka soo jeeda gobolka Oromada dagaalkuna uu wali ka sii soconaya degmooyinka Guradhaamo ee deegaano hor leh inta gobolka Oromada ayaa timisay inay ciidamada Soomaalida weerarka soo qaadeen hase yeeshee bulshada Soomaaliyeed ku nool gobolka Liibaan ayaa xaqiijisay inay ciidamada Oromada deegaanada ay dab qabadsiiyeen dagaalkuna uu halkaas ka qarxay warina uu ka soconayo dhulka buuraleyda ee xadka u dhaxeeya Oromada iyo Soomaalida dagaal culus ayaa wali ka soconaya gobolka Axmaarada waqooyiga Gondar ee deegaanka Axmaarada xogaga TPLF ayaa qaadaya weeraro xooggan oo ka dhanaa militariga dalka Itoobiya ayadoo waqooyiga gobolka Tigreega ay ka soconayaan dagaalo aad u culus ay haddana ciidamada TPLF ay isku sii ballaarinayaan deegaano aad u tiro badan ayadoo dagaalku ka soconayo gobolka Canfarta Axmaarada xuduudda saddex goosoodka xuduudda Tigreega iyo Eritrea xogaga TPLF ee deegaanka Axmaarada ku soo daabulaya dhalinyaro aad u daayar ayadoo dagaalku deegaano hor la ku sii fidaya marba marka ka dambaysa militariga dalka Itoobiya ayaa duqeymo ka fulinaya gobolka Tigreega ayadoo weerar saddex magaalo maanta ay duqeymo ka fuliyeen ciidamada ciidanka ee dalka Itoobiya halkaan uu khasaare aad u baan ka dhashay shacabka waqooyiga Itoobiya ay ku soconayaan duqeymo aan kala joogsi lahayn oo fulinayaan ciidamada ciidanka dalka Itoobiya iyadoo marba marka ka dambaysa khasaaraha uu cirkaas ku sii shareerayo dagaaladuna ay ku sii balaaranayaan guud ahaan dalka Itoobiya ciidamada xoreynta shacabka Oromiya ayaa qaadaya weeraro xooggan oo ka dhanaa militariga dalka Itoobiya dagaalyahanada Ola ayaa sheegay inay waqooyiga Shewa ay weeraro xooggan ku ekeeyeen fariisimaha militariga dalka Itoobiya deegaano aad u balaaran ay qaabsadeen dagaalkuna uu xawligiisa ka soconayo gobolkaasi ayadoo gobolka Oromada ay ka soconayaan barakacyo aad u waaweyn oo saameynteeda leh ciidamada ku dagaalamaya gobolkana ay marka ka dambeysay deegaano hor la ku filayaan aadan bare Ducaale waa xildhibaanka laga soo dirtay magaalada Gaarisa ayaa si laba filaan uga soo muuqday golaha wasiirada ee maanta uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya William Samoei Ruto aadan bare Ducaale ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya iyadoo dad badan ay soo dhaweeyeen bulshada Soomaaliyeed ay si weyn uga dhowr sugayeen golaha wasiirada ee madaxweynaha dalka Kenya uu soo magacaabi doono aadan bare Ducaale oo in badan lagu tumay inuu si weyn uga dhow yahay madaxweynaha dalka Kenya ayaa maanta u igmaday inuu noqdo wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya khudbadkan ugu dambeeyay militariga dalka Soomaaliya ayaa wali si wada hawlgaladiisa uu ku bixisanayo xogaga argagixisada ayadoo deegaano balaaran gobolada dhexe dalka Soomaaliya guud ahaan ba laga xoreeyay xogaga argagixisada tan iyo kulanti dambe wacan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh